الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بين استعمار المدينة ودين صلى الله على سيدنا محمد markoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadle waxaan kala mahad celinayaa maamulka degmada iyo dhammaan maamulka runtii u taagan har iyo habeen inay u shaqeeyaan dadka maxaan ku raadin mas'uulku yihiin meesha aan taaganahay waa magaalada bartankeedii waad aragtaan waxa geed iyo cali garoob laga gurayo waxaan go'aansanay oo garwaaqsanay markaan aragnay magaalada inaysan ku sii jiri karin inay ahaato meel u agbaadiyo inay ahaato inay ku jiri karin waxaan go'aansanay inaan wadooyinka furno way waxaad arkaysaa magaaladan waxay tahay magaalo istiraatiiji ah wadooyinkeeda ay qurxan yihiin si wanaagsan u habaysan yihiin laakiin waxaad moodaa inaan meel la maraysan lahayn waxa loo mari laayahana waxa weeye waxa ka baxay geedihii oo baabuurtii iyo dadka inta ay ka leexanayaan waxaan rabnaa markii aan u horkacno reer Galbaarey oo iyakana ay maxaan ku raadayay ay ku baraarugaan inaan sanitation-ka ka qayb qaadano nadiifina magaalada haday tahay wasaqda iyo haday tahay gurada geedaha waa arkaysaan saakad shaqadana socoto diyaar baan u nahay inaan maxaan ku raadayay idin habeenii maalin in garab taagnaano waxaan go'aansanay hore in kugu sheegnay inaan wax qabad la iimaan haddii Ilaahay yiraahdo anagu shaqadana wax qabad weeyo waad ogtihiin hadda daraad waxaan dhagax dhigaynay wadadii Balaxaawi u dhaxaysay ee loo marayay Galbaarey iyo Balaxaawo oo dadkii ay ku ahaayeen dib badan ay ku qabeen codsiga asaga aan dirnayna wali waan sugaynaa inay ka soo jawaabaan qurba joogta iyo qaran joogta inta inay ka jawaabaan oo wadadaas insha Allah usbuucan dhexdiisa ay bilaabato sidaa darteed saakana waxaan go'aansan inaan sii wadno shaqadii oo maalin meel ay maxaan ku raay taagantaan ka sii wadno hal meel aan la taagnaan waad arkaysaan magaaladii waxa cali garoob hadda laga gurayo waxaan u mahad celinayaa ururka hooyooyinka degmada Galbaarey runtii kaalin lafdhabar ay ka qaateen oo ugu horeyso maama Qadiijo ee runtii magaaladan wax badan u hayso lafdhabar u ah hooyooyinkii iyo maxaan ku raadayay bulshadiina ayadana ay u tahay lafdhabar maamadaas waxaan leeyahay qeyr Allah ku siiyo hooyo si fiican baad u garab taagan tahay dalkaada iyo deegaankaada adiga ururka hooyooyinka waxaan hooyooyinka dhibaatada ay ku shaqeynayaan ayagoo hooyooyin ah oo xaafadooda joogo oo maxaan ku raadayay waxbarasho ugu jiro oo shaqo aan haynin baa waxay diyaar u yihiin shaqo kasta oo qabanay inay garab istaagaan oo wali naga horeeyaan waxaan leeyahay ururka dhalinyarada soo kaca waxaan leeyahay odayaasha guurtiga soo kaca waxaan leeyahay maamulka degmada waa taaganahay insha Allah ta'ala aan wada garab istaagno shaqadan aan qabanno magaalada anagana aan quruxsanno bilicdeeda aan soo celin haddii Ilaahay yiraahdo midaas way midda annaga oo dhan anfacaysa insha Allah waxaan rajaynaynaa isbuucan inaan soo duubi doono ama arki doontaan wadooyinka hadda saan u eg oo ka qurux badan ama wadooyinka arki doontaan kaamira ka arki doontaan xiran oo hadda la mari laayay ayadoo baabuurtii dadka ay marayaan inaad aragtaan ma rajaynaa haddii Ilaahay yiraahdo marka waxaan rabnaa waxa annaga inaan isku duubni iyo wax qabad iyo midnimo Galbaarey waa ognahay wax qabadka jeceshiin horumarka jeceshiin nabadda jeceshiin annagana wax kasto aan qabanayno wax nagu dhiirigelinay waa bulshada saas waxaan rabnaa marka wali waxaad moodaa inaad xoogaa habac ku jiro yara jiiftaan waxaad diyaar u noqotaan inaad na garab istaagtaan shaqada qabataan shaqada qof leh ma leh shakhsi ma leh maamul ma leh bulshada iskala waxaan annagana bulshada ka nimid oo bulshada oo shaqeynayna waxay nahay hoggaan kaliya laakiin waxaa la rabaa talada iyo tusaalaha iyo qarashka iyo dhaqaalaha inta bulshadu ka imaada inaad bulshada iyadana ay intaas diyaar u noqotaan haddii la yiraahdo gacmo wada jir wax ku gooyaan baa anagu waxaan diyaar ilaana habeenii maalin inaan seexanin u taagnaano maxaan ku raadayay hadba meesha magaalada ay ka dhiban tahay inaan tagno oo wax ka qabanaa rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh halkaan taaganahay waa wadooyinka degmada Galbaarey wada ka mid ah waxaa qabsaday geedka loo yaqaan geed yuhuudka oo runtii maaragtay bilicda iyo quruxda magaalada aad ula dagaalamayo oo wax faa'iido ah oo hadda macnaha uu leeyahayna aysan jirin geedkaas oo runtii magaalada guud ahaanteeda qatar ku ah oo moodino magaalada dhan uu duur ka dhigay waxaan go'aansanay marka ka maamul degmo ahaan annaga oo bulshada qaybaheeda kala gadisan kaashanayno inaan sameeyno muxuu ahaay bilicda magaalada inaan soo celino naf iyo maal waxaan awoodno aan ku bixino sidaa darteed marka wadadii koowaad baan saaka ka bilownay waxaan rabnaa marka intii magaalada bilicdeeda ay si toos uga soo noqonayso waxaan rabnaa inaan ololahan wadno waxaan nagala qayb qaadanaya bulshada qaybaheeda kala gadisnaa sida haweenka dhalinyarada maamulka degmada iyo cid kaste oo horumarka jecel qayb ay ka yihiin annagana waxaan rabnaa inaan ku hogaamino intii magaaladan macnaha quruxdeeda iyo bilicdeeda ay ka soo laabanaysa inaan ku hogaamino oo ka daalin sidaa darteed marka waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshooyinka reer Gado oo ka soo joodo halkaan oo xaruntii gobolka Gado ah inay nagala qayb qaataan horumarkaas aan maaragtay ka shaqeynayno
xoolahooda ku bixiyaan maskaxdooda ku bixiyaan maaragtay xooggoodana ay ku bixiyaan si magaaladeena aan u quruxsanno waxaan ka shaqaynaynaa ma wax gaar ah annaga aan leenahay waa wixii aan maamul ku aheynay iyo deegaankanagi dee qof kastana mas'uuliyad baa ka saaran sidaa darteed marka waxaan codsanaynaa in lagula garab siiyo waa waddo halbowle ah oo magaalada Garbaharey wadooyinkooda ka mid ah oon shaqo ka hayno waxaan codsanaynaa cid kasta oo nagala qayb qaadan karto in ay nagala qayb qaadato reer Gado reer Garbaharey iyo reer Sade waxaan si gooni ah baaq ugu dirayaa gabdhaha jaaliyadda reer Sade ee jaamacadda Aabud Waaq dhisay iyo guriga ugaaska gabdhahaas gabdha qiimo badan waayo way mahadsan yihiin waxaan aad u codsan lahayn gabdhahaas si gooni ah in ay nogala qayb qaataan horumarka iyo bilic soo celinta degmada tan Garbaharey maadaama bilic soo celinta magaalada ay koow ka tahay in halgaroobka laga jaro wadooyinka la hagaajiyo ayaanu maanta u taaganay halkan waxa inoo soo qabsoomay in aan dhisnay wadadii isku xireysay isbitaalka iyo magaalada waxa kale oo dhagax dhignay iyaduna aan rajaynayna insha Allah in isbuuc nagu soo aadan inoo bilaabato wadadii isku xireysay Balaxawe iyo Garbaharey oo la sumareeyay dhamaan shaqooyinkaas oo dhan ayaa noo bilaaban midii koowaad oo ahayd in caligaroobka magaalada la jarana maanta way noo bilaabatay waa maalintii koowaad waxaana rajo fiican ka qabnaa insha Allah isbuucan dhaxdiiso in magaalada wadooyinkeeda oo dhan aanu ka dhamayno caligaroobka iyo wax kasta oo la mid ah caqabad ku ah wadooyinka la marayo waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ama reer Garbaharey oo dalka iyo dibadda meel ay joogaanba in ay ka qayb qaataan bilic soo celinta magaalada iyo quruxdeeda haddii magaaladii aanu ku nooleena ay noqotay meel duur ah oo geedii ay ka baxeen oo wadooyinkii la mari waayo gaadiidkii iyo dadka intuba ay mari waayeen annaguna aan joogno oo mas'uuliyad naga saaran tahay waan u istaagnay haddii aanu nahay maamulka degmada oo gudoomiyaalka ay nagu hogaaminayaan annagoo kale oo xubnaha kale oo maamulka ana waan u taaganay har iyo habeen waxaan rabaa marka dadka reer Garbaharey haddii ay dibad jiraan iyo haddii ay joogaan dalkaba inay qayb ka qaataan bilicda magaalada annaguna waa u taaganahay iyaguna waa inay nala garab istaagaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddii annagu dadkaan u adeegayno waa inaad idinkana nagu kaalmaysaan maskaxdiina iyo maalkiina annaga dadka maskaxdii baan u nahay fikirkii iyo in deegaankii la hormariyaanu keenaynaa laakiin dadkii nala shaqayn lahaa oo nagala qayb qaadan lahaa magaalada quruxdeeda idinka weyn